xogayaha warfaafinta ee xisbiga wadani ayaa waxa uu ka hadlay safarkii samawada ay ku joogeen gobolka saaxil sida uu mar kale ku soo waramayo wariyahayaga Faisal Fifa warbixintaasi Hargeysa nooga soo diray iyadoo maalmihii laga soo gudbay mas'uuliyiin sidoo kale xubno kamid ah hoggaanka sare ee xisbi siyaasadeedka mucaaradka wadani ay socdaalkii loogu magac daray samawada ku gaaraan bixinayeen degmooyin iyo tuulooyin hoos yimaada gobolka saaxil oo noqday gobolkii saddexaad ee saaxiib la noqda hirgelinta diiwaangelinta codbixiyaha ee doorashooyinka loogu gobol xadhayo ay waxay mas'uuliyiintaasi soo afmeereen socdaalkii ay ku joogeen gobolkaasi Cabdirashiid Xasan Matan waa xogayaha warfaafinta u qaabilsan xisbi siyaasadeedka mucaaradka wadani waxaanu faahfaahin ka bixinaya xilli ay Hargeysa dib ugu soo gadan noqdeen waftigii hogaaminayay samawada ee ka tirsan xisbiga mucaaradka wadani waxyaabii ay ku soo arkeen gobolka saaxil qaabka diiwaangelinta uga socoto iyo sidoo kale jawaab celinta ay ka bixin doonaan waana kan isagoo ugu horeyn ka hadlay arrimahaasi waxaan jecelahay inaan idin ka hadlo safarkii samawada wajigiisa saddexaad waanu ku mareynay gobolka saaxil saadogtiin waxaa laba safar oo hore lagu soo maray gobolka Togdheer iyo gobolka Awdal safarka wajigiisa saddexaad oo hogaaminayay gudoomiyaha xisbiga Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro oo ay ku helinayeen saraakiil sare oo xisbiga xogeyayaal xildhibaano garabka haweenka ka dhalinyarada iyo arrimaha bulshada waxa uu saan sheegay wajigiisa saddexaad waxaanu maray gobolka saaxil degmooyinkiisa iyo tuulooyinkiisa in badan waxyaabaan ku soo aragnay waxa ugu badnaa tabarka waraysa safarku wuxuu ahaa lagu wacyigelinayo diiwaangelinta ka bilaabatay gobolka saaxil maalinta shalay oo aan rabnay dadka inaan ku baraarujino sidii gobolada kale aan ugu soo maray in ay u diyaargaroobaan diiwaangelinta Cabdirashiid Xasan Matan xogayaha warfaafinta u qaabilsan xisbi siyaasadeedka mucaaradka wadani waxa uu mar kale hoosta ka xariiqay dhawaan ka soo yeedhay wasiirka warfaafinta u qaabilsan dawladda Soomaaliland Ismaan Cabdilaahi Saxadiid Cadaani kaasi oo ku aadanaa in warbaahinta dawladda loo fasaxi doono inay baahiyaan wararka ku qotoma xisbiyada mucaaradka Soomaaliland isagoo ku tilmaamay in haba yaraatee aanay arrintaasi waxba ka hirgelin waxa uu yidhi ballanqaadkii uu sameeyay wasiirka cusub Cadaani oo yiri waxaan noqon doonaa wasiir ka furfuran wasiirkii hore oo ogolaan doona warbaahinta qaranka inay wada isticmaalaan xisbiyada qaranka arrinkaas wuxuu noqday faan iyo ballanqaad aanay waxba ka jirin waxaana caddaatay in wararkayagii xisbiga wadani aan laga sii daynin habeeraatee TV qaranka Cabdirashiid Xasan Matan waxa uu mar kale hoosta ka xariiqay dhawaan ka dhacday gobolka Togdheer isla markaana lagu bartilmaameysaday waa sida uu hadalka u dhigay mas'uul hore uga soo digaartay xisbi xaakimka kulmiye isla markaana ku biiray xisbiga mucaaradka wadani inta waxaan raacin lahaa war degdeg oo soo gaaray saaka waxa xalay loogu dhacay guriga oo loo diray ciidanka aariyada marwasada jaamacadan oo sarkaal ka tirsan xisbiga wadani oo xalay laga gurigeedii loogu dhacay oo la galaalafay sidii xukuumadii militariga ahayd ay u galisay oo kale loogu dhacay gurigeedii lagana soo qaaday lana sheegay hadda in loo keenay Hargeysa ay ku xiran tahay marwasada waa muwaadinad ururada Soomaaliland wax dambi ay faraha kula jirto oo la soo sheegay ma jiro gurigeedii bay hurday sidii caadi ahayd waxaanu dareensanahay kaliya waxa weeye waxa saada loo daba socdaa inay tahay maxaa xisbiga wadani ugu beertay gunaanadkii Cabdirashiid Xasan Matan xogayaha cusub ee dhawaan gudoomiyaha xisbigaasi u magacaabay xilka xogayaha warfaafinta ayaa ka gaabsaday inuu jawaab ka bixiyo su'aal warbaahintu wax ka weydiiyeen oo la xidhiidhay sababta uu doortay xilkan isagoo hore xisbigii uu ka tirsanaa ee UCID ahaa musharax u taagan jagada madaxweyne ku xigeen buuxinta jagadan oo muhiim ah xisbiga waana ku faraxsanahay inaan ka qayb qaato kaalin kasta oo la iga baahdo oo wax tari karta xisbiga iyo qaranka labadaba waxaan cadeynayaa inaanay ahayn xil maran isla markaana ay jirto xurmo badan wada tashi iyo isqadarin xisbiga gudihiisa iyo hoggaankiisaba waa markii ugu horeysay ee xogayahan cusub Cabdirashiid Xasan Matan warbaahinta si rasmi ah ula hadlo taniyintii gudoomiyuhu xilkan u magacaabay waana siyaasi in muddo ku soo dhex jiray saaxadda siyaasadda Soomaaliland
islamarkaana mas-uuliyiinta xisbiga wadani ay in badan ku faraxsan yihiin inuu kusoo kordhin doono qaabab siyaasadeed oo hor leh oo lagu wajaho islamarkaana la iskaga caabiyo xisbiyada dhigooda ee xisbigu la tartami doono doorashooyinka fooda nagu soo haya. Faysal Maxamed Aadan, Faysal Fifa, TV-ga caalamiga Somali Cable, magaalada Hargeysa.